boqolaal ka tirsan shacabka iyo dadweynaha magaalada Cergaabo ayaa maanta banaanbax ay ku soo mareen jidadka iyo shaariicada waaweyn ee magaalada Cergaabo cabasho xooggan kaga muujay biraha antarooyinka shirkadaha iskaarsiinta oo muddooyinka dambe saxawli ugu soo badanayay qaar ka mid ah xaafadaha iyo daafaha magaalada Cergaabo dadweynaha ayaa inta badan cabashadooda la xidhiidhay dhibaatada caafimaad ee biraha iskaarsiintu ku hayaan guud ahaanba mujtamaca ku dhaqan magaalada Cergaabo iyagoo xukuumadana ka dalbaday in birahaasi dibadda looga saaro bulshada dhexdeeda si looga hortago bay yiraahdeen khatarta caafimaad ee ka dhalan karta hirarka ilama qabatanka ah ee si daayaan dadweynaha oo ay ka waxaanu leenahay biruhu khatar badan bay noo geysteen waxaanu markaa dawladda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka gobolka iyo maamulka degmadaba aanu ka codsanaynaa waanu si dhiibli uga codsanaynaa in biraha nala ka raro oo loo raro goobo ku habboon biraha laga taagay magaalada dhexdeeda biraha soo magaalada dhibaato ku haya caafimaadka xaqiisa waqtii wuxuu ku dhamaadeen shimiri baa ku soo daadkushaday soo dhaxday daarada سنوبنا برهاني واحد بداية وحنا ميكروويف وأنا لكن ميكروويف سكو وحنا مرنا يصاب تدخل أنت بدن وضم مستقبل يعني طبيعي يجين معنا صاب برهاني حقيقة من كنا بارلمان كنا كهضلان دولة دينا كقبته شعب كنا يقعدان نمك كمبيني قد قالها لأن مقالة كسران كونياش كان هذه أنا هاي سنين وحكوالة تلو ضد كوسوتشي توحنا إن كنا وحكوالة تلو مقالة كونياش كتاعن أما بناك وقصارا. براهن إن كتاعن عن ودماذا كلا لحين أنت يسوتشر عشان تتلاقي يسوتشر عروري بريان كوتشر بريان الرجل للسنة ومحيي شمبرتا يسوق بتيه تكاه يسوق بتيه دارد الهير كوكبعة محن كل هذا إن حوشة يسوق هدا وحي كل على دارد الهير. غادر أحمد حسن Cergaabo.